gabadh yuhuudad ah oo islaamka neceb ayaa inan yar dhashay ilmihii yaraa wuxuu la koray ama uu la barbaaray caruur muslimiina caruurtan muslimiintii guri tarbiyad lebay ka soo baxayaan shay markay qaadays yiraahdeenba bismillaah bay yiraahdeen wax markay cunays yiraahdeenna bismillaah bay yiraahdeen markay wax cabays yiraahdeen bismillaah bay wax kasta caruurtan muslimiintu bismillaah bay oranaysaa tan yaree jaarka ah ee laakiin qoyskoogu uu yahuuda yahay ciyaalkii muslimiinta ay ka baratay dhaqankii bismillaah hooyadeed iyo aabaheedba way arkeen inay tan yari bismillaah wax kasta leedahay waxay yiraahdeen saynu uga goynaa dhaqankan muslimiinta leh way ka goyn kari waayeen oo tii yaraa waa la cadaabay oo waa la garaacay bismillaah cid alla cid ka goysay ayaa la waayay hooyadii inanta yar dhashay inantii yarayd inay disho oo ay sumayso ayay doontay waxay tiri kol haddii ay dhaqankii muslimiinta iga qaadatay waa inaan dilaa cuntadeedii bay sun ugu dartay cuntadii markay sun ugu dartay tii yarayd cunis tidhi ayay sidii caadadeedu ay ahayd ayay tii yarayd bismillaah tidhi cuntadii markay cunaysay bismillaah bay tidhi afkay geliso way ka dherigto waxba kumayna noqon nafaqo iyo borotiinaad bay ka heshay tayar hambadeedii ayay hooyadii sunta ku dartay tidhi waxaan sun baan moodayay ilayn sunba ma ahayn markaasay tii yarayd hambadeedii qaadatay in ka midoo afkay gashato way liqday halkii bay ku dhimatay hooyadii waad aragtaa eeg suntan caqiidadu yayna inaga lumin hamoodin inay suntu iskeed wax u disho cidda wax dilaa waa allah hamoodin inay birtu iskeed wax u goyso cidda wax goysaa waa allah waxani waa sabab hamoodin dabku inuu iskii wax u gubo cidda wax gubtaa waa allah waxbaa laynagu barayaa markaa waa dhacdo caadi u dhacday oo shuraaxda bukhaariga mukhtasarul bukhaariga culimada sharaxda ay soo wariyaan ay soo qaataan weeyi qisadaa inanta yar ee hooyadeed ay sumaysay ay culimadu sharxaan ama ay soo qaataan weeyi diinteennu waxayna amartay wax kastood bilaabayso bismillaah inaad tidhaa hadduu sharaf leeyahay haddaba bismillaahdan aynu leenahay diinteenna uunu gaar maahee nebiyadii inaga horreeyey nebiga aynu eegnaaba bismillaah nuux ka soo bilow nebi nuux muxuu lahaa markuu markabka ka hadlayey ama doonida bismillaahi majreeha wa mursaaha buu lahaa kolka eeg bismillaah nebiyadii inaga horreeyey nebi sulaymaan nebi nuux nebiyada bal dib u soo eega kitaabka qur'aanka ah bismillaah waxa weeye diinteennuna way ina fartay oo waxaba layna yidhi wax kastoo arrin loo bismillaah adoodha bisinka aad u qaban weydaa baraka yeelan maayo waxaynu ognahay bismillaah waa shay laynagu addoonsaday oo ilaahay aynu ugu dhowaanayno rasuulkeennuna waraaq markuu qorayo ama kitaab markuu qorayo bismillaah buu odhan jiray bismika allaahumma ama bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaanu ku bilaabannay allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista naxariista guud allaha arraxiimi raxiimka ee naxariista naxariista khaaska ah ee mu'miniintuni ay leeyihiin arraxmaanu raxiim laba magacoo ilaahay leeyahay baa bisinka ku dhex sheegan laba sifo ama laba magac waa raxmaan oo naxariistiisa gaal iyo islaamba waynu nuugaynaa waa raxiim oo naxariista aan isbedelin mu'miniinta unbu ilaahay aakhira siinayaa yaa raxmaan addunya waraxiim alukhraa bay culimadu odhan jireen ilaahay markay baryayaan yaa raxmaan addunya waraxiim alukhraa wa kaana bilmu'miniina raxiiman maxaa inala gudboon labadaa magac mayna nimco weynina dareensiinin arraxmaan araxiim caafimaadkan aad haysato indhahan aad la haysato laxaadkan ilaahay kuu dhammaystiray isbitaallada haddaad eegto dadka wada curyaamiinta ee wada yaalla dadka wada laxaad kale ee wada jiifa dadka wada bukaanka ee sariiryaalka ah dadka maxaanku idhaahdaa inaga digdigta badnaa ee laakiin sariirta runtu ay imika runtu ay u run sheegtay ee gogasha yaalla markaad aragto iyo caafimaadkeennan iyo sidaynu isku qaadqaadayno ilaaha inaynu u mahadnaqno miyayn ahayn ilan ma dhici karta adduunyada inaynu ilyar soo iibsanne ilyar haddaad ishaa beesho lagama yaabo inaad soo iibsatid naf labaad ma heli kartid wax kaste haddaad maal kaste haddaad bixiso ma heli karaysid naf labaad ilaaha nafta ku geliyey ee noocan kuu abuuray ee laxaadkan ku siiyey ee caafimaadkan kuugu deeqay ee ubadkan iyo cuudkan ku siiyey ee amnigan iyo nabadgelyadan ina dhigay ilaaha inaan u mahadnaqno miyayn ahayn alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
dugsiyada barashada quraanka ee Daarul Istiqaama isagoo jooga agteyda online baa loogu dhigaa oo macalinka u hikaadsha oo sideyna SKB iyo imo aalad baa gudbinaysa oo uma baahna inuu aado oo dugsi joogo Daarul Istiqaama halka ardayga oo maxay barayaan aayaadkii quraanka ahadiis iyo tajwiid adkaar iyo ducooyin alifkoo loo hikaadsho aan kuugu daree tafsiirkana way u dhigaan madrasa Daarul Istiqaama madrasada Daarul Istiqaama oo uga barateen barashada quraanka kariimka kana qalin jabisay dufcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay barashada quraanka qaab online ah dalka ama dibadda meesha joogtaba waad noqon kartaa ardayga Daarul Istiqaama madrasadu waxay damaanad ku siinaysaa in xilligii lagu qabtay wax lagu bari doono ardayga wixii faahfaahintaas dheer iyo kala xiriir gmailada iyo lambarada shaashada ku qoran Daarul Istiqaama daarta cilmiga